sida intiina dhageysatay la socotaana barnaamijkii kan ka horeeyay waxay noo joogtay markii SNMtu ay qaadeen dagaalo ay ku galeen dhulka buuraleyda ee waqooyiga iyo wixii ay kala kulmeen waxaana sanadihii ka dambeeyay socday dagaalo goos ahaa oo dhexmariyay ciidamadii xukuumadda iyo kuwii mucaaradka ee SNMta labadii sarkaal haddaba ugu sareeyay ee hayay talada dhinaca waqooyi xilligii ay ka socdeen dagaaladii dhex yaalay xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre iyo SNMti waxa kamid ahaa General Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo xilka kala wareegay General Gani sanadkii 1986 inta haddaba aynaan muddadaasi u gelin General Morgan xilligaasi ka hor waxa uu madax ka ahaa qaybtii 21aad ee ciidamadii Soomaaliya ee fadhiya iyagu gobolada dhexe isagoo warbixin kooban ka bixinaya arrintaasina waxa uu jananku yidhi qaybta 21 intaan joogay runtii lafteedu dagaalo badan baa ka socday oo dhinaca dawladda Itoobiya uga imaanayay iyo mucaaradad markaas dawladda ku kacsan markaas ka bacdi lafteedu ma dhibaato yareen dagaalo sokeeya oo gobolada dhexe lafteeda ka jiray runtii wixii aan oran karay waajib idinku tahay inaan ka qabanana waa ka qabanay dhibaatooyinkii ugu cuslayd xasuusan karta maxaa kamid ah maxaa ku soo waajahay waxaa kamid ahaa waqti aan halkaa la bedelayo qaybta waxay ahayd qayb dagaalo badan gashay waxayna ahayd waqti dawladda Itoobiya iyo ururka SSDF ay qabsadeen Balanbale iyo Galdogob ay qabsadeen Galdogob marka aagayga ma ayaan ahayn qayb kale ahayd laakiin Balanbale waxay ahayd meelaha laamiga Guriceel buu maraa wadogtahay meelaha ugu dhow laga soo gudbi karo oo wadanka laga kala goyn karo si qorsho ahaa ayaa loo qabsaday Balanbale ka bacdina waxay noqotay inaan sameeyno difaac adag oo aan la soo mari karin marka qorshaha dhinaca dawladda Soomaaliya ma uusan ahayn in la weeraro horeeto la weeraray inta kala socdeen oo midkay ku qabsadeen kadibna waxaa loo bedelay qorshaha ciidamada in difaac uu noqdo oo ayaan soo gudbin waxaa waajibkanagu markana la ku siiyay wasaaradda gaashaandhigga wasiirka gaashaandhigga marka General Maxamed Cali Samantar ayaa noo ahaa ka bacdina waxaanu adkeynay difaaca Balanbale iyo meelaha kaleeto intaan joogay weerar kale way soo qaadeen caabud waabay ku soo qaadeen dagaalka runtii si fiican baan ugu jebinay dawladda Itoobiya ciidamadeeda marka wax Soomaaliya lama soconin laakiin markii waxay u qeyshadeen Soomaaliya u qeyshadeen kumana ay soo gaarin marka waxaan marxadan kala kulanay wuxuu ahaa difaacaas dawladda Itoobiya inaanu dalkana ka difaacno hadii aan su'aal halka ka weydiimo waxaad leedahay dagaaladii midlan ka dhacay Balanbale iyo Galdogob binaan ciidamada soo duulay wax Soomaaliya kuma jirna waxaan ciidamada Itoobiya u baahanaya ma waxaan ku iri waxa dawladda Itoobiya iyo ciidamadii SSDF oo wada socda ayaa qabsaday Balanbale laakiin muddadaas waa iga horeysay waa intaan qaybta la bedelin waa tahay marxaladan tagayo waajibkan ku qabo waxa in difaac la adkeeyo oo aysan aan loo ogolaanin ciidamada Itoobiya iyo SSDF inay soo gudubto oo ay laamiga rasmiga ah wadanka isku xiray inay kala gooyaan kadib haddaba markii uu dhamaystay General Morgan muddadii uu joogay qaybta 21aad ee ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waxa loo bedelay qaybtii 26aad ee waqooyiga oo hoggaankeeda fadhigiisu ahaa magaalada Hargeysa waxa haddaba General Morgan aanu weydiinay sidii xaaladdu ahayd markii Hargeysa loo bedelay waxaana uu yidhi waxaan kala kulanay meel kacsan oo buuq ka jiro oo macaadi ka jirto oo dadku aad u kacsan yihiin baan ku aaday kadibna waxaan isku day inaan bedelo siyaasadii markaas ciidamadu maadaama ay lahaayeen awoodda siyaasadeed iyo midda military ay lahaayeen waxaan isku day inaan wax badan ka qabto aniga shakhsiyan iyo saraakiishii ila shaqeynaysay intaba aan halka ka weydiiyay markaas su'aale maadaama aad halkii tagto oo isku dayday inaad wax ka qabato inaantay wadcigii markii hore jiray bal waxaad yarkaadaysaa General Morgan wadciga jira caynku ahaa iyo talaabooyinka adigu aad qaaday markaas si aad inta wax uga bedesho wadciga jira waqtiga wuxuu ahaa urur SNM oo asaasmay oo laba xoogeystay oo ku helay muxuu ahaa taageero shacbi ah ka helay magaalooyinka iyadoo markaas loo nisbeynayay in maartay waqtigii shuruuc lagu soo saaray nabadgeel lagu adkeynayo
marka dhibaatooyinkan la kulma waxay ahayd magaaladu markaas waxay ahayd kerbiyo ama baando bay ahayd waxaa la qabanayay qaad qofkii lagu arko ama magaalada ku cunaya waa la qabanayay culaysyo badan markaa saaraa oo magaalada qaar ahaan Hargeysa iyo Berbera iyo Burco waxaan amar ka bixiyay in nidaamkii hore la bedelo dadka qaadka haddii guryahooda lagu geliyana in la daayo wixii dibadaha iyo xuduudka ka soo gelaya waayo sharci dowladeed baa markaas dee soo baxay in dibadahaas lagu qabto laakiin aan magaalooyinka iyo dadka guryahooda la gelayo iyo muxuu ahaa in taas la daayo nidaamkaa runtii waa ku guulaysanay shacabku markaa nafis bay helaan oo in badan oo taageero u ahayd SNM-ta oo u arkaysay in cadaadis lagu hayey ama ciidamaday ku hayeen markii culayskaasaan ka qaadnay oo baandoy ka qaadnay oo noloshii ay soo noqotay waxaa timi in dadkii shacabka ahaa ay haaraamaan ama ay taageeradii u hayeen SNM ay kala noqdaan in badan waana sababta keentay markii dambe si SNM ay dadkii kalsoonida ku soo celiso ay u dileen korneyl ciidamada nabad sugidda ahaa oo Hargeysa dhexdeed ay ku dileen taasaa marka waxay keentay nabadgelyo xumo cusub inay abuurto haddana bay keentay marka tallaabooyin badan iyo talooyin badan xataa dowladda kabineedkeenan u gudbinay ayaa jiray oo annagoo la kaashayna maamulkii ka jiray gobolka ama xagga xisbiga ha noqdo ama xagga maamulka ha noqdee talooyin aan isku darsannay oo aan isleenahay in wax badan oo wax laga bedelo qaabkii hore dowladdu waxna naga yeeshay waxna markaas sharcigii markii la cuskeeyo taas lama ogolaan karo laakiin waxaan isleenahay anagu in badan baan wax ka qabanay si shacbiga Soomaaliyeed waqooyiga oo markaas yani shacbiga marka urur mucaarad asaasmo dabcan taageero u baahan taageerada waxaa loo baahan marka inay saamayso dadkii shacabka hoose inay saamaysan kala dagaalanay ciddii siyaasiyan u taageeraysa ama u aaminsan muxuu ahaa mabda ahaan u aaminsan ururka mucaaradka waa meesheeda laakiin shacab badan baan ku guulaysan waatay aan su-aal halkaa kaa weydiiyey waxaad sheegtay General Morgan in aad talooyin soo jeediseen oo xagga xukuumadda u jeediseen oo aad kaga talinayseen xaaladda meesha ka taagan wax ma nooga sheegi kartaa talooyinkii aad gudbisay waxay ahaayeen aad gudbisay wixii laga aqbalay iyo wixii laga diiday waxaa ka mid ahaa waxaan u jeedinay markaa Soomaaliya oo dhan waxaa qaadka watii laga mamnuucay markaa Soomaaliduna waxay markaa u arkaysay in qaadku noloshooda ay ku dhisan tahay maaha cunistiisa keliya laakiin dhaqaale ahaan inuu ku dhisan yahay waayo wajaale waxaa ku yeelay beero ilaa gabiley beero qaad baa ku yeelay oo waqti dambe la gubi doono waxaanu soo jeedinay in beerahaas dadka shacabka mar hadday u arkeen dhaqaalahooda ku fadhiyaan beerahaas waxaana ay dhaqdhaqaalan ka helayaan dadna ku masruufanayaan in loo fasaxo qaadka la iska daayo beerahan aan la burburin dabcan inka siyaasadda dowladdu marka waxay ahayd in meesha qaadka laga gooyo in wax la cuno lagu beero taas waana ka diiday waxaa la yidhi sharcigu dalkoo dhan buu u siman yahay beero qaadna dalkoo dhan waa laga tirtiray mana la dayn karo waa qodob bay ahayd xaalaha nala ka yeelay waxaa ka mid ahaa in la fuudayo dekadda Berbera oo ganacsigu si fiican uga socday in loo fasaxo Jabuuti iyo isku xirka waqooyiga oo aan la xanibin oo wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynuhu u fasaxo in fuudeyn loo sameeyo dhinaca ganacsiga oo xayiraad saarayd laga qaado taas waa nala ka yeelay xaalaha security ku taxalluqa in la fuudeeyo waa nala ka yeelay qodobada noocaasa runtii ka mid ahaa in yani dadka shacabka ahi ay dareemaan inaysan dowladdu aysan ku haynin culays iyo cadaadis aysan ku haynin laakiin mucaaradada ka asaasantay SNM inay sabab u tahay dhibaatooyinka shacabka soo gaaray qaadka ka soko waxyaabo kaloo maalan xagga nabadgelyada ku saabsan oo leedahay tallaabooyinka caynkaasa hal la qaado oo talahaan aad ku dhiibtay ma jirtaa waa jirto dad ama siyaasiyan loo xiray ama aan markaas la baarin oo xabsiyaasha ku jiray ama hay-adaha nabadgelyada ku xiraa waa la sii daayey oo annagu markaan ku sababaynay wax cad haddaan lagu haynin inaan xabsiga lagu hayn karin la sii daayo marka qofkii haddii ay caddahay dembi inuu galana maxkamad in loo gudbiyo qofkii aan dembigiisu caddayna in la sii daayo waa ku guulaysanay taasoo xukuumadda dowladda waa naga yeeshay waa in la sii daayo sidaas daba dhegaystayaal maqlaysayeen General Morgan waxa uu sheegay in talooyin badan uu gudbiyay madaxdii ka sarreysay oo uu ku talinayay
sida ay lahayd in wax looga qaban kara dhibaatada ka jirtay waqooyiga. hase ahaatee waxaa iyaduna jirtay warbixin taariikhda ku qoran ee ahayd 23 bishii koowaad sannadkii 1987 oo ku soo baxday wargeysyada ka soo baxa dalkan Britain qaar ka mida. tusaale ahaana wargeyska la yidhaahdo Times 2 bishii July sannadkii 1987 warbixintaasi waxaa lagu sheegay inay ahayd mid sira oo General Morgan uu gudbiyey madaxweynihii xilligaasi Maxamed Siyaad Barre iyo wasiiradiisii gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha. warqadaasi oo SNM-tu ay ku doodaysay inay ahayd qorshaha u watay General Morgan. warqadaasi waxyaabaha ku qoraa waxa ka mid ahaa: 1. in hantida ay haystaan dadka taageersan SNM-ta laga burburiyo. 2. in dib u qaabayn lagu sameeyo golayaasha deegaanka warqadu tilmaamaysa inay cid u badan yihiin iyo in lagu barxo ardayda dugsiyada ku jira qaar laga keenay carruurta ku jirta xeryaha qaxootiga ee Hargeysa ku yaalay. 3. in deegaanka u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo SNM-ta laga dhigo meel aan lagu noolaan karaynin oo ah in la burburiyo meelaha biyuhu ku jiraan iyo tuulooyinka ay soo galaan. 4. ugu dambayntii in ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dawladaba laga saaro dhammaan kuwa lagu tuhmi karo inay gacan siinayaan mucaaradka, gaar ahaana kuwa haya jagooyinka xasaasiga. warqadaasi oo af Ingiriisi u bedelay Maxamuud Sheekh Axmed Muuse oo ahaan jiray guddoomiyaha maxkamaddii sare ee Soomaaliya bilowgii 70-aadkii si aad ah ayay u faaftay. haddaba General Morgan ayaanu weydiinay inay warqadaasi jirtay iyo waxa uu ka ogaa. waxaana uu jananku yidhi: warqadaas waagiiba ogaa. warqadaas saaxiib waxaan leeyahay warqadaas ma jirin. warqada waa jirta dawladda communicationka lagula xiriiraa waa qoraalaan qoray waa jireen, laakiin qoraalkaas waagaa la soo saaray wuxuu ahaa waraaq falsification lagu sameeyey. qofka saxiixiisa haddii warqad kale uu saxiixa waa la guurin karaa, warqad kalena waa lagu qori karaa, forgery waa laga dhigi karaa. warqadaas talooyin ku qoraan lafteeda waa akhriyey. dee waraaqa waxa weeye dagaalku waa iska badan yahay. qofkii markaas adiga kula dagaalamaya wuxuu rabaa dhinac kale waa ka dagaalami karaa. marka warqadaas mid saliya baar leh maysan ahayn oo xaggana ka soo baxday markaas maamulkii ka jiray waqooyi galbeed. waxaad ka warantaa General Morgan, inkastoo aad sheegtay inaad ku dadaashay maalan sidii inaantay culayskii markii aad tagtay meesha loo yarayn lahaa, haddana arrintii ma sii yaraanin, waa tii markii dambe qaraxday meel fog gaadhay. maxaad u malaynaysaa inay sabab u ahay taas xaggiina iyo xagga dhinaca mucaaradkaba, gaar ahaan xaggiina idinku maxaad u malaynaysaa inaad tallaabooyin qaadeen aad imika dib u eegi karto? horta waa run, arrintu markii dambe way sii xumaatay, dee gacanka hadal bay gaartay. inkastoo wakhtiga marxaladda iyada ah dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia wakhtigii Mengistu oo xiriir dhex maray, xiriirkaas oo ku salaysnaa in la debciyo colaadda labada dowladood, labadoodna ay ku heshiiyeen. masalan waxaan ka mid ahaa rag sarkaalkii u sarreeyey ee loo magacaabay dhinaca Soomaaliya, annagoo guddiya dhinaca arrinta dhinaca ciidamada aanu wakiil ka noqono dowladda Soomaaliya kanana xaajoonno dowladda Ethiopia. muddo 45 casho ayay nagu qaadatay. heshiis guud buu ahaa, mid qarsoodi ma ahayn, in ciidamada la kala raro oo la kala durkiyo 15 kilomitir qolba dib u baxdo si loo debciyo colaadda taagan, si markaa loo gudbo xiriir kaleeto oo dowladda Soomaaliya dowladda Ethiopia waqtiga dhex mara. arrintaas runtii waxaan u fulinay si loo baahnaa ama labadood ku heshiiyeen baan u fulinay. laakiin waxaa kadib khayaano ku jirta heshiiska Ethiopia oo weli dhinaca Mengistu. kadib waxaa heshiiskaa ka mid ahaa markii ugu horreysay aan jigjiga ku shiray shirkii ugu horreeyey. qodobada waxaa ku qoraa mucaaradka labada dhinac, mucaaradka labada dowladood qolo walba dhinacay joogtaa in aan la howlgelin, laga joojiyo taageerada, muxuu ahaa iyagana muxuu ahaa ay dib u qaadaan, xuduudka ka qaadaan, dagaal inaysan ridin way ku jirtay. muran badan baa naga dhex dhacay ilaa markaas muxuu ahaa runtii qodobkaas iyagu ay ku adkaysteen. waxaana u qarsoonayd markaas iyagoo SSDF oo ururkii ugu horreeyey oo mucaarad dowladda Soomaaliya ku noqda burburiyey oo maaragtay wiiqay. muxuu ahaa hogaamiyihii markaa SSDF oo Cabdullaahi Yuusuf Axmedna xiray.
markaas waxay ku talagaleen inay soo saaraan u muuqatay dowladda siyaasadeedu saan u aragnay u muuqatay inay s s d f ay maaragtay ay wiiqaan oo ay u arkeen s s d f inaan danteedu aysan ku jirin marka day ka dagaalamaysay gobollada dhexe iyo mudug iyo gobolladii north east la dhihi jiray markaa kabacdi u wareejiyey maslaxadoodii dhinaca s n m oo iyagii soo kiciyey oo iyagii hubeeyey hubkaasna uu ahaa hub ay dowladda heshiiskii ay ku burisay labadooda ay galeen dee taasaa carqalatada ugu weyn ugu horreysay dowladda etoobiya u sabab ahayd iyo raggii s n m-ta madaxda u ahaa oo dagaalka sokeeye soo qaaday burcana ku soo qaaday hargeysana ku soo qaaday baa sabab u ahaa annagu mar haddaan saraakiishii ciidamada horta ninka sarkaal markuu yahay waa la dhaariyaa ama mas-uul kasta oo mas-uuliyad qaba la dhaariya waxaa lagu dhaariyaa inuu daacad u yahay dalkiisa inuu difaaco ka difaaco cadow gudaha iyo cadow dibadda ah dee waxaan u dhaarannay ama saraakiisha u noqonnay ama ciidanka u galle baa saas ahayd taasna anu shakhsiyan baanba aaminsanay mar haddaad dalkaaga u dhaaratid waxa weeye dhaartaad martay inaad fulisid baa waajib kugu ah maadaama aad tidha haddaba inaantay anigu waxaan u dhaartay dalka inaan difaaco guda iyo debadba ilaa heerkee ayay gaadhsiisan tahay matalan ninka sarkaalka ciidamada sidaadoo kale oo inaantay darajo weyn ciidamada ka haya ilaa halkee ayuu gaadhsan yahay matalan difaaca gudahoo kale matalan tusaalahaan haddaa soo qaado dadka qaarkood waxay ku dooda inay leeyihiin sarkaalka ama ciidamada soomaaliyeed daw ma ahayd in magaalooyinkooda ay garaacaan dadkooda rayidka ay laayaan sidee baad u aragtaa dooda caynkaas ciidan waxaa loo abuuray ciidamada qalabkasta waxaa loo abuuray ama dowladba u samaysatay inay difaacdo dalkeeda dalka hadday difaaco lama oran kii soomaaliga ahaa xuduudka inta ka baxdid oo cadow soo raacdid dalkaagii soo weerar annagoo marka gacmaha sarkaalkii ciidamada qaranka u dhaartana gacmaha inta laabatid aduu meel iska fadhiiso isdhiibna lama oran taa marka qofka ku doodaya waxaan qabaa inuusan xaq u lahayne annagu khaa'imiin ma aanaan ahayn waxaan ahayn dalkanaga inay xaq nagu tahay waajib nagu tahay difaaciisa muqadasna inay tahay maxaad u malaynaysaa jalmo garow inay ahayd matalan okay waa mucaaradid way kaa horiman kartaa mid humaysan iyo mid gudahaaba laakiin markaad qiyaaso inaantay maadaama ninkii ugu sarreeyey meesha xukumi ahayd in shacbiga oo dhamme kaa raaco maxaa keenay bay kula tahay ana waxaan ku horta dhibaatooyin waqooyi bilowgoodii aniga 2 sano waa iga horreeyey anuu markaa waqti aan tegayo waxaan hadalkayga ku jirtay meel kacsan oo dhibaatooyin ka jiraan dee ayaan markaas tegey laakiin waajib haddana igu ahayd haddaad mas-uul tahay inaad barnaamijkii aad wax kaga qaban kartid inaad samaysid waana samaynay ilaa xadna waa samaynay waana ku dadaalay laakiin hadallada laleeyahay baalkii muxuu ahaa ama laysla dhexmaro leeyahay shacab baa diyaarada lagu duqeeyey shacab baa la laayey tanuu dagaal arrintu iyadoo aan dhammaanin oo aan waqooyi lagu kala bixin yaa sideedaba anu 1988 ayaa layga bedelay iyadoo weli xiisadii taagna aysan dhammaanin saraakiil kale ay bedeshay oo dhammaystirkeeda la weydiin karaa laakiin anugu kolleyba intaan joogay waxaa weeye muxuu ahaa ama taliskii iga sarreeya noqoto oo wasiirkii gaashaandhigga madaxweynaha iyo mas-uuliyadda markaas amarkay siinaysa ha noqotee waxa weeye waxaan qabnaa inay ahayd waajib dalka in la difaacdo ayaan qabaa waad ka warantaa jenaraal morgan wakhtiyadii dagaaladu ay socdeen ama waqooyiga ha ka soo bilaabeen ama ilaa muqdisho ha yimaadeen ilaa wakhtigii xukuumaddu dhacday ciidamada soomaalida waxaa lagu qiyaas jiray in ka badan 100,000 oo qof wixii idinla dagaalamayana jabhaday ahayn markaasi maxaad u malaynaysaa inay sabab tahayd ciidamadii xoogga ahaa caynka ahaa ee etoobiya markii ay la dagaalamayeen ilaa gudaheeda galay in markii dambe niman qoryo sidoo kabali ay eryadaan maxaa keenay bay kula tahay waa runtaa waa su-aal macquula wey horta runtii waa wakhtiyaasha hadda aad sheegaysay ee jabhaduhu ay kaceen ama ilaa xamar la soo gaaray waxaa markii dagaalada sokeeye ka bilaabanayeen waxaan ahaa wasiirkii gaashaandhigan ahaa waxaa weeye arrimahaas waxaa weeye tayadii ciidanka wakhtiga isaga ahaa ama dhinaca moral ha noqoto ama tayadii ciidanku lahaa run ahaantii waxaa weeye hoos bay u dhacday midda labaadna waxaa weeye ciidan haddii qabiil soo galo oo ay ka baxaan hadafkii guud ay u dhaarteen qarannimo hadduu ka baxo ay qabiil ku biiraanna dee burburka waxaa keenay markii arrintii qabiil ciidanka laftiisa qabiil soo galay in badan oo saraakiila ama ciidamada ah
ayaa waxay go'aansadeen markay xaaladda saa u arkeen inaysan dagaalamin way isaga baxeen oo waxa weeye dagaalka saas uusan u suurtoobin ciidamadii awoodda lahaa inay hubkooda isaga tagaan aan kaa dhex galay inaantay waxaad ii sheegtay yani ciidanku inuu dabcay inuu hoos usii dhacayay dad badan waxay ku doodaan ay yidhaahdaan maamulkii ciidamada ayaa dadkii niya jabiyey oo matalan hadday noqoto sida abaalmarinta loo bixinayo sida dadka loo dallacsiinayo sida loo kala reebayo taasaa keentay in dad badan ay ku niyad jabaan oo u arki waayaan ciidamadiina yaanay ahayn ciidamadii soomaaliya oo dhan maxaad u aragtaa adigu taa taas waa runtood wey waxyaalaha haddii aan dabacaan sheegayo markii dee maamul anuu hebel baa maamulaya ma odhanayo laakiin ciidanku waqti uu ahaa ciidan qarameed qaran soomaaliyeed oo isku duubnaa cadaalad darrada ciidanka labtiisa dhexaysa hadday ka dhacdo ama qof isku korsaah qof kala dhaafiyo ama qaabka sarkaalka loo diyaariyo ama darajada ku dallaco qaab sharciga u degan ciidamada ayaa jira qofku layskama siiyo darajada aqoon buu ku qaataa wuxuu ku qaataa dagaal buu ku qaataa abaalmarin noocaasiya marka waa jirtay ciidamadu in badan ay ku dhacday waxtabasho noocaasa oo moraalka waxyaalaha moral markaan leeyahay waxyaalaha moraalka ciidamada hoos u dhigay oo ay ka mid ahayd kaasi waxa uu ahaa jenaraal maxamed siciid xirsi moorganna oo aadan nuux dhuulle u warabayey barnaamijkeena toddobaadkan intaas ayaanu ku soo gabagabaynaa tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo